السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. si caadigeena ahayd waxaynu halkan soo gelin doonaa shaqooyinka kala duwan aynu inta badan ka soo gelino sida lagu soo ilaaliyo baraha kala duwan. halka shaqada ugu horeysan rabeyna ka sheego waxa weeyaan WFP hay'ad loo yaqaano oo ah hay'ad qaramada midoobay oo barnaamijka cuntada iyo beeraha cuntada iyo wixii la halmaala ah ama barnaamijka cuntada adduunka waxay u baahan tahay storekeeper ay uga baahan tahay berbera magaalo xeebeedka berbera uga baahan tahay. position-kan wuxuu dhaci doonaa dhowaan 6 February haddii la ka dhigo oo maalmo ka harsan yihiin. storekeeper-ka waa taqaanaano warehouse-kooda weyn waa qof jooga oo isticmaalaya aqoon iyo nidaam iyo process ku shaqeynaya. waa qof officer ka ah meeshaas uu joogaya kana shaqeynaya isla markaana wixii alaab ah iyo wixii rasiidh ah iyo wixii soo galay iyo wixii baxayaba looga baahan yahay inuu daba galo, ilaaliyo, hubiyo, check-gareeyo. waxaa kamid markaa shaqooyinka looga baahan yahay waxaa kamid ah inuu support receipts, dispatch commodities including shipment, track to track علشان alaabta gaari kula wareegayso oo dhan markaa ku shaqeynaya documentyo la soo ansixiyay iyo wixii la halmaala sida way billiski, delivery notice-ki waxaas oo dhan inuu hubiyo oo waa shaqo u baahan markaa qofku inuu technically wax ka fahansan yahay incoming and outgoing information mechanism and management. maaha shaqo adag oo culus maaha, waa shaqo u baahan qofku inuu farsamo ahaan fahmo. waxaa kaloo kamid ah daily inspection wax la inuu sameeyo hubin maalinle ah oo uu ku eegayo reportkiisa iyo commoditieska meesha yaala iyo wixii ka baxay ama by daily uu ku shaqeynaya by weekly iyo by monthly annually-na laga yaabaa in dee warbixin u urursadaano barta markaa wax badan ka sameeyo. waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha laga rabo monitor the condition of the warehouse and commodities and take appropriate action to support efficient warehouse space utilization and well-organized commodity storage following WFP warehouse standards. badanaa maadaama oo dee WFP ay adduunyada ku leedahay dacaladeeda meelo kala duwan oo ay alaabaha ku kaydsato waxay leedahay standards ay isticmaasho iyo halbeegyo iyadoo ay ku shaqeyso. sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in qofku hubiyo xaaladda meesha goobta iyo ku habboonaashiyaheeda iyo sida ay u shaqeynayso isla markaana warbixino ka diyaargarayn kara hadduu incase wax dareemo. aqoonta maxaa looga baahan yahay qofkan? aqoonta waxaa looga baahan yahay dugsi sare inuu dhammaysto secondary level, inuu training ka haysto wixii arrimaha la xidhiidha disciple-ka ah 3 sano haddii uu awood u leeyahay inuu waayo-aragnimo ka soo shaqeeyay dhinaca logistic-kada, storekeeping-ka iyo warehouse-ka. ingiriisida waa inuu ku hadli karaa, qori karaa, waa looga baahan yahay ingiriisidii. waa inuu sidoo kale knowledge and skill leeyahay, experience in monitoring various aspects of logistics operation, experience in support warehouse management system, experience in support inventory management system. waxyaabahaas in tababarero la qaato kuwaana isku dayo insha allah. marka shaqadan WFP waxaan rajeynayaa haddii ilaaha ka dhigo in dad badan xareysan karaan maadaama master iyo degree-ba aan lagu xidhin laakiin lagu xidhayo kaliya in qofkaasi dugsi sare leeyahay laakiin ama uu somehow maxaa la yiraahdaa looga baahan yahay arrimo dhinaca logistic-kada iyo storekeeping wax kale maaha. maadaama alaabta meel walba lagu kaydiyo meeshaas loo baahan yahay markaa inuu qofkaasi keep up ku sameeyo wixii soo galay wixii ka baxaya. waxaa looga baahan yahay application instruction-ka qofku markuu shaqada rabo inuu soo codsado. waxaa looga baahan yahay interested candidates are requested to submit online application through e-requirements. application that do not meet the above required will be disregarded. Only shortlisted candidates will be contacted. waxaa lagu buuxinayaa application hab e-requirement ah oo online ah baa lagu buuxinayaa.
sidoo abala garanaysaa markaa waxa weeyaan inaad markaa ku dhufato apply here meesha ku qoran tahay buluuga ah bartaasaad ku dhufanaysaa 6 February ka hor inta ka horeysa weeyaan insha Allah shaqada hala apply garayo oo hala xareeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.